dhaliniya waaye dhammaantood siday u dhisteen dhulkoodii nabada u dhilbeen allow dhow Somaliland dhaliniya waaye dhammaantood siday u dhisteen dhulkoodii nabada u dhilbeen allow dhow dhaafaha wanaagga dhisaha wixii dhacayaba dhakiisa hayaha wadaniga dhabta allow dhow umaha dhaafaha wanaagga dhisaha wixii dhacayaba dhakiisa hayaha wadaniga dhabta allow dhowr bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhammaanba khiyaarta hawada nagala xidhiidha meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan qayb ka mid ah barnaamijyada taxanaha ah ee aanu ku eegano safarka shaqo ee madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo waftiga ballaadhan ee uu hogaaminayo ay ku marayaan qaar ka mid a gobolada bari ee somalilan madaxweynaha somalilan oo safar shaqo ku jooga magaala madaxda gobolka togdheer ee burco ayaa dhagax dhigay mashaariic kala duwan oo muhiim u ah guud ahaanba bulshada ku dhaqan magaalada burco madaxweynaha somalilan waxa uu dhagax dhigay dugsiyo kala duwan oo ay ka mid ahaayeen 2 dugsi sare iyo weliba mid hoose dhexe kaasi oo kaalin weyn oo muhiima ka geli doona korukaca aqoonta daayarta u soo kacaysa gobolkani mas-uuliyiinta gobolka togdheer ayaa waftiga madaxweynaha warbixin ka siiyey mashaariicahaasi magaaladii burco oo aad iyo aad u ballaaratay oo daafaha galbeed iyo bariba u kala baxday xaafadda waxaa la yidhaahdaa xaafadda saleebaan kulul waxay u baahan tahay mudane madaxweyne iskuul hoose dhexe ayaa halka wasaaradda waxbarashadu nooga hirgelinaysaa mudane madaxweyne dhagaxa noodhiga ku soo dhowow ka soo fog iskuuladii macnaheegu maaha ardaydu way tagaan laakiinse way habsaamaan oo meel kastoo burca carruurtu waxay doonayaan inay wax bartaan marka waxaa ku dhacda habsaan marka dhowr meelood oo magaalada ka baxsan ayaan iskuulla ka dhisaynaa kana wuxuu ka mid yahay aan ugu soo dhaweynayno dadka xaafadda degan ilaahay khayr hay bismillaahi raxmaani raxiim allah saaka farxad iyo sharaf noo ah in saaka madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed uu nala soo kulmo iyadoo aanu qorshe noogu jiray halkani goobtanaynu joogno inaanu ka dhisno dugsi hoose dhexe oo ah koolayaasha magaalada oo aanu doonayno iminka inaanu ku fidino waxbarashada iyadoo ay ardadii sidaa wasiirku sheegay had iyo goor habsan ku dhaco wakhtiga loogu talagalay casharadoodu ay ka soo gaari waayaan sidaas waxa weeyaan runtii sida waxbarashadu ay aad ugu ballaaratay mudane madaxweyne intii aad ku haysay gacanta hoggaanka dalka waxay tusaale cad u ah in aanu saaka halkan diyaar u nahay inaad nala dhagax dhigto oo aad noo dhagax dhigto ilaa 4 dugsi oo hareeraha magaalooyinka ah iyadoo ay dugsiyadii hore qaadi waayeen ardadii islamarkaana ay ka fogaadeen kuwii hore u jiray ardada qaarkood oo aanu doonayno inay waxbarashadu fududaato mudane madaxweyne ku soo dhowow bismillahi raxmaan raxiim farxad weyn bay tahay inaan maanta halka ka dhagax dhigo anaan helo fursadaan la dhagax dhigayo mashruucan halkan iskuulkan xaafadda loogu talagalay oo baahi weyn loo qabo ay bulshada u qabto marka aad baan ugu farxsanahay wasaaradda iyo ciddii ku shuqulle iyo kuwa gobolka iyo maamulka inta hawshan ka shaqayso dhan iyo inta hawshan fulinaysadana aad baan u bogaadinayaa waan u mahadnaqayaa insha allahu tacaala waa ilaahay wax ka badan inuu guuray madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo wafdigu hogaaminaya waxaanu ku soo dhowaynaynaa xaafadda maxamed cali oo dugsi sare aanu halkan looga bilaabayo kaasoo dawlad ahaan kan iyo kii horeba dhulkiisa ay bixisay golaha deegaanka
dhisidiisana ay wasaaradda waxbarashadu ay fulinayso waa dugsi sare maxamed cali secondary school mudane madaxweyne ayaan doonayaa maanta noo dhagax dhigto wasaaradda waxbarashadu waa kugu soo dhaweyso. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. madaxweyne wuxuu ka mid yahay dhulkani 4 iskuul oo togdheer u dhagax dhigayno waliba burco kan waa iskuul sekondariya xaafadda maxamed cali la yiraahdo waxaan leeyahay in maanta u dhagax dhigno insha Allah sida ugu dhaqsaha badanna waanu u dhisaynaa iskuulada aanu dhagax dhigno dawladani ma raagto hadday ugu badato bisha la dhisayo ayay ardaydu ka maqnaanaysaa. Bismillahir Rahiim farxad weyn bay tahay inaan maanta ka qayb galo waan dhagax dhigo iskuulkan halkan ka bilaabmaya maxamed cali insha Allah waxaan rajeynayaa in dadka deegaanka iyo magaalada iyo dadku ay aad uga faa'iidaan kuwii ummadda dadku anfacay lahaa ka dhigo. intaasi kadib madaxweynaha Soomaaliland iyo waftiga qiimaha badan ee uu hogaaminayay waxay soo kormeereen wadada isku xidhaysa gobolada Maroodi Jeex, Togdheer iyo Oodweyne taasi oo dhisitaankeedu haatan si rasmi u socdo. kulan kooban oo lagu qabtay madasha uu dhismahaasi ka socday ayaa waxaa ka hadlay mas'uuliyiin kala duwan waxaanay ku dheeraadeen qiimaha ay wadadaasi yeelan doonto. قوة جراحة دمشقان كنا لجراحة وحوي الله يقول لامي قل دوليو وحوي لامي الجوة ده إن شاء الله تعالى إذن الله رجيسا يسقطه وعلى سنة ماشي اللي هذا بريتش كعارش بريتش كمالا بيكون في كيا بعد سنة وهاي سنين تعب هذا بقى وحنا نقول نبيجو تعب هذا نقولي بلغات كذا وبلغاتي يجي هذا كوي دي الدكتور يعني نقول قردي ودوين كوني وحنا نسافر البعيد ودي ما كناش يعني قلب البعيد قلب كم بقى نقول ده قلب كم هو قلب كم يكون من سنين لكن أنت بدنا بيقول بعيد طبعا إن شاء الله تعالى مستقبل كل بودس وتقرأ ولا رأس طبعا دونا آخر حاجة فوق وين في يد جوين يصير قدوسة في ثرى شاور شيء يوتا حويه كلام اللي هذا جريدر كا يوتقراع يصير حويه دولار أفرقا عقف وين بقى يمكوين وقلب حانا وكاني فريش اللي احنا كنا نساعد الدنيا كنا نقول رجسو يقولوا وقتنا وقت يا وطن فريش أفرقا عقف إن شاء الله تعالى أيضا كاني حويه أنا مدحوينه وزيرك مدحتويده وزيرada kale barwada madaxweynaha wasiirada tacliinta iyo xildhibaanada oo dhan maayarka barasaabka dadweynaha wasiirkii informationka wasiirada deegaanka wasiirkii gaashaandhigga beeraha جدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدحوينه أحمد محمد محمود سينايا ومانت الشرف وين بينوتهاي هدي أنا نهاي جددي خير برعو جددي تقدر وشليتنا وتدي دين عرقابات لقى حول دكتي أنو كل شغلين وأنو كل شغلين تانا إن أنو حقق بنو مدن مدحوينه عاديات بعض ما تنتهي إلى هاي عبر كلها قوسبه وددي أودوينه واتنا إنما كتشونه إلى الحمنا وانو بنا عيدي بانو دقناي وحنو كل شوينه بإذن الله كريم مر هدي على عقفيري نو كنتي مر هدي أنو هيصلو مر هدي أنو ما أنت أنا نورور أنا تلو حدي عقف كدونتان تلو العلتي حقي كدونتان إن أنو وددي أودوينه لقين دونه بإذن الله كريم وعينو كتشرنا سبتمبر التالي بإذن الله كريم هرقيسانو فوق كيرينا ودبنا الحرقة كتشرينا بإذن الله كريم دبنا نصونا غنينا تعيري قابو يعني مركانا هكا كبلابينا شغادة وحي هارينا وينو وضينا مدن مدحويني آدي بعضو ما سنتهي وسيرك مدحتويدا مرنا هالمامي ما ينصوتوا حويين قيد والبوونا لتشوغا وهو البنوونا لقبتي وحول بنوونا لقبتي آديات إيه وسيرة كلا إيه الدولة ددوينها أوردنين بينونش ددك الدبدة
iyo gudahaba magaalada burco magaalada hargeysa aad iyo aad baa naloo caawiyey mudana madaxweyne aduguna dee waadna barbar taagnaydo waan xusuusanahay maalintii ay markaas sanadkii bar ku dhammaysay ee mashruuca aad furaysay xoolanaadinta waxaad tidhi tan markaynu dhammayno ergaabal waynu isugu tagnay dawaba tahaynu isugu tagnay ilaahay cibrigaynu gaarsiiyey marka ilaahay waxaan ka baryaynaa inaynu haddii alla yidhaahdo taana aadnu furto oo aad gaadho intaasaan anugu ku soo gabagabaynaya waxaan iminkana ku wareejinaya بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينها جمهورية سوماليلاند مدن أحمد محمد سيرايو iyo wafdiga ballaaran ee golaha wasiirada xildhibaanada ee hogaaminaya murada koowaadba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudane madaxweyne waxaa sharaf ah inaan bixin yaro kooban kaas iyo wadadan roodweyne iyo dhammaan horumarinta ka socota gobolka daadmareed runtii wadadan waxaa nasiib u yeeshay iyadoo ay dowladduna gacan aad iyo aad u ballaaran ay ka geysatay bulshadii gobolkuna ay u kacday oo contribution badan la bixiyey oo maanta aanu aad iyo aad ugu naaloonayno in waddo nagu xidhiidhisa caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa iyo caasimadda Burcaba aanu helno in waxaa ka socda mashaariic fara badan gobolka taas oo ay bulshada gobolku ay aqoonsan tahay in karti iyo garasho fiican u leedahay waxtarka weyn ee ay dowladdu u geysato in gobolka daadmareed oo kala duwan hadday tahay mid hay-ad lagu soo jiheeyey iyo hadday tahay mid ay dowladdu toos wax uga qabanaysaba waa bulsho aad u yaqiinsan in aqoonsanna waxtarka iyo gacanta dowladda in waxa maanta ka socda saddex mashruuc oo waaweyn baan ka wadnaa mid waxaa lagu ururinayaa qaaraan xoolo oo lagaga qayb qaadanayo wadadan sidii xuduudii gobolka loo gujin lahaa qaaraan kii xoolaha ayay madax dhaqameedkii gobolka oo dhan ay ku mashquulsan yihiin arigii baa la ururinayaa kadib markii wasiirka madaxweynuhu uu noo bilaabay contributionkaas annaguna iyo xildhibaan waabeeye waxaan annaguna markaa aanu ku dhawaaqnay inaanu 5,000 oo neef iyo 500 oo geela aanu kaga qayb qaadano wadada waxa kale oo ay markaa madax dhaqameedkii naga codsadeen in xoolihii dhulkii la marin lahaa loo baneeyo taas oo ay naga codsadeen in seere baabiil aanu galno aanu itaalu hayn tiina runtii waanu ka gacan siinay dhulkii ceshiimooyinkaha iyo seerihiiba si fiican baan u bilownay taas oo wasiiradda ay noogu maqan tahay sidii ay nooga gacan siin lahayd dhammaystirka hawshaas ay noogu maqan tahay iminkana in yaroo kaalmo oo shidaala ayayna siisay hawshaasna si fiican bay noogu socotaa waxaanu doonaynaa kaana codsanaynaa mudane madaxweyne inaanu tusaale u noqonno gobollada jamhuuriyadda Soomaaliland oo aanu baabiino heshiimooyinka iyo sharci darrada ka jirta dhulka daaqsinka ah waxa kale oo si fiican ay noogu taageereen bulshada xoolo dhaqatadii kadib markii ay dawladdu si hagar la'aan ah ay wax uga qabatay xoolihii sidii loo daaweyn lahaa oo gaari mobile iyo daawadiisiiba istaanbiinoo ah mar allaaliya marka xoolo ay hayrtuulayaashu soo sheegaan markiiba si degdega ayaa taasna loogu gurmadaa oo loo daaweeya xoolaha taasna waxay noo suurtagelisay oo noo fududaysay inay noo dhaganuglaadaan ogaadaan bulshada xoolo dhaqatadii in wax loo qabtay taas oo ay iyaguna qaadhankaas ka qayb qaadanayaan waxa aan imika xoogga saaraynaa wasaaraddii rifanyuga wasaaraddii maaliyadda waxay furaysaa xafiiskii rifanyuga waxaanu bilaabaynaa in dakhli ururin in rifanyugii beeraha iyo kii wasaaradda deegaanka si aan u muujinno xuduudda dhaqaale ee dakhli ee gobolka iyana wiigan soo socda insha Allah xariga laga jaraya xafiiskaas rifanyuga dhaqaalaasna waan bilaabaynaa madaxweyne aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaad maanta qalabkii wadada halkan aad noogu deeqdid oo muftaaxii horumarka muftaaxii ilbaxnimada muftaaxii aqoonta ay wax walba noo soo marayeen taas oo halkan dhinacayga uu joogo xildhibaan waabeeye oo ah xildhibaanada har iyo habeen u soo jeeda wixii intaa ka dheeraada
isaga ayaan ku wareejinay mudane madaxweyne waxaanu kaaga mahadnaqaynaa run ahaantii anigoo iminka xaggii constituensiga ka hadlaya deeqdan aadka u qiimaha badan oo noqon karta bilowgii waddada isku xidha burco oodweyne iyo hargeysa run ahaantii qalabku waa qaybta ugu muhiimsan ee halkan wax ka qaban kartaa waxaannu imminka annagu xildhibaan ahayn muddo 8 sannadooda waxaannu dawladdii hore ka baryi jirnay 50,000 oo dollar noogu dar waddada haddii kale miisaaniyadda ansixin mayno waxa maanta ii farxad ah mudane madaxweyne in qalab $500,000 ku dhow aad ku wareejiso dawladdeenna ay ku wareejiso waddadii dhex maraysay deegaanka laga soo doorto waxay taasi muujinaysaa madaxweyne in maamulkaagiina uu wanaagsanaaday anigana tacabkaygii aanu khasaarin iyo xisbigayga waxay farxadii ah madaxweyne inaynu maanta qalabkaa wareejinno haddii la yidhaaho oo noqon doona waxaan odhan lahaa waxa uu madaxweynuhu dhagax dhigay waddadii ceergaabo shalay dadka reer oodweyne iyo dadka deegaankan ay marayso waddadu waddooyinku isma jebinayaan ha ku niyad jabina madaxweynuhu dalkoo dhan buu u yahay madaxweyne waddooyin badan baa laga dhagax dhigay dalka mid walba waxa looga baahan yahay uun dadku inay tartamaan wax lagu tartamo horumarka ayaa u wanaagsan maantana bilowgii macdaadka waynu haynaa waxaan kaloo aad ugu mahadnaqayaa wasiirka madaxtooyada runtii oo iminka waddooyinku hoos yimaadaan oo dadaal dheeraada isaguna ka galay bismillaahi raxmaan raxiim waxaan doonayaa inaan xuso madaxweyne dalkeenna maanta hoggaankaagu wuxuu ku soo kordhiyey in ay deegaamadu ku tartamaan horumarka iyo wax nolosha wax ka taraya waxaa mahad gaara leh kuwii noo bilaabay oo iyaguna boorame bilaabaan iyo inay xukuumaddu inta badan iyadu gacan ka geysato marka labaadna waxa mahadle qolada dowga cad ee hargeysa iyaguna tartanka kaga qayb galay oo buuraha jebiyey oo welina wada qolada waddada cad ee hargeysa dhinaca koonfurta hargeysa ee sallaxda hargeysa iyaguna gacanta ku haya labadaba waxaan isleeyahay qolada ceergaabo dhagaxa maanta loo dhigay iyo qolada oodweyne dhagaxa loo dhigay oo dalkana ugu faan badnaa ha iska kaaga celiyaan mudane madaxweyne maanta waxay noo tahay maalin weyn shalayna maalin weyn bay noo ahayd maantana waa maalin weyn bay noo tahay mudane madaxweyne anigoo giddi idin wada salaamaya ayaa waxaan xasuustay meel seeta la yidhaah seeta waa meel yaroo u dhaxaysa oodweyne iyo burco waxay ahayd in 1/2 kilomitir seeto waa meel ay gaariyaashu galaan mar allaad wayn wada ognahay dee oodweyne caanaha burco looga keenay inta badan iyo jiidahan u wada dhow seeto maalinta uu roobku da'o reer burco dhan way warwaraan waxay yidhaahdaan seetaa roobkii maanta uu helay halkaasi waxay baabuurtu way degi jirtay siday ahaan jirtay ilaahay unbaa maanta og mar baanu isku taxallujinno waxaanu nidhi bal intaanu soconno aynu woog samayno aynu lacag u uruurino intaas seeto haddaynu dumar nahay aynu ku hagaajinno maanta seeto waa laga raystay maanta seeto waa ka raystay oo runtii maanta seeto meel ku xidhay mashaariicdaad adigu kow ka tahay ee aad ballan qaaday madaxweyne mashaariicda runtii uu imika ee wadooyinka ee wasiirka madaxtooyadu kow ka yahay gudida isku taxallujisay ee burco ee iyagu jaamacadda dhisay ee bridge-ka dhisay ee magaalada burco habeenii maalin u soo jeeda ee gobolkan wax badan ka qabtay gudidaasina mahad bay leedahay ilaahay baa mahad leh in allaaliya inta xildhibaan in allaaliya inta barasaa baaha ee soo maray togdheer in allaaliya inta soo maray meero in allaalinta madax soo martay oo dhan aad bay u mahadsanyihiin anigu 18 sanadood baan halkan joogay oo aan ka shaqaynayay intaan bariga ka shaqaynayay maanta maalin inooga farxad badan tahay ma jirto xaggana waa ta la isku xidhay xagga kale waa la isku xidhay siduu sheegayay wasiirkii xukuusana wadanka oo dhan bulshada ayaa imika diyaar u ah inay wax qabsato gacmahaynu isqabsanaynaa haddii alla yidhaahdana shidaalka waa soo kordhinaynaa insha allah wasiir cabdicasiis samaale ayaynu dib ugu yar noqon doonaa odhan doonaa reeroodan waxay shidaalku waa nagu yara marka insha allah waa soo kordhinaynaa hawshaasi aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin
mudane madaxweyne soo dhawow. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فرحد وين بيتين المانتا كسو قيب قلوب مشروع كان إساقا قيمة هي قاية وين له إن شاء الله تعالى سيد الله وضع الشيء مشروع عن وحو الله إيمان إياه فإذا فربربو أوليمان يا برشدية الدقامة وكوبيغي هذا أردن ummaduna sida uga qayb gashay iyo gudiyaashii odayaashaha mar walba ka shaqeynaya horumarinta gobolka iyo horumarinta wadada iyagana aad baan maadnaq balaaran ugu celinaya maalin walba anagu waxaanu diyaar u nahay meeshii wax qabsanaysa iyo ummadii wax taraysa wax qabsanaysa bulshada gacan ka geysanaysaba inaan hadaanu dawladda nahay ku dhiiri gelino inaan gacan ka geysano inaan muxuu ahay aan waliba qayb wax ka qaadano aad iyo aad baa u maasantiin insha Allah taala ilaa waxaan ku rajaynayaa inuu mashruucan iyo kuwa kaleba ay inoo aflaxaan ay horumar iyo isku xidhnaan ummadda meel walba leh ayna gaarsiiso aad baa u maasantiin wassalaamu calaykum. madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa gabagabadii waxa uu si rasmi ah ugu wareejiyay gudida horumarinta wadooyinka ee gobolka Togdheer furayaasha baabuurta loogu talagalay inay fududeeyaan dhisitaanka wadooyinkaasi. madaxweynaha Soomaaliland iyo waftiga uu hogaaminayay waxay sii wateen socdaalkoodaasi shaqo waxaanu dhagax dhigay madaxweynaha Soomaaliland meel laga dhisayo 200 guri oo loogu talagalay inay galaan ama ay u hoydaan dadka danyarta ah ee degan guryaha dawladda. madaxweynaha Soomaaliland waxa uu warbixino kala duwan ku siiyay madasha uu dhagax dhigay barasaabka gobolka Togdheer mudane Axmed Cumar Xaaji Cabdilaahi Xamarje iyo waliba maayirka magaalada Burco Maxamed Muraad. mudane madaxweyne goobtan aan joognaa waxa weeye goobtii aan ugu talagalay inaanu ka dhisno guryaha dadka danyarta ah ee degan xafiisyada dawladda ama degan wadooyinka ama degan iskuulada. waxaanu isla kaashanaynaa oo mashruucan aanu wada qabanaynaa haddaynu nahay dawladdii hay-adda la yidhaahdo UN Habitat waa 250 baloodh oo dawladda hoose ay iibisay oo lacag ka bixisay. waxaa laga dhisayaa 200 oo guri. 200 guri kastaaba waa 3 maqsin oo guryaha dadka caadiga ay ku jiraan oo kala. mudane madaxweyne waxaan ku talagalay dadka degan xafiisyada dawladda degan wadooyinka iskuulada ee awoodoodu ay siin weyday inay iibsadaan ama kireystaan guri oo meesha ay markaa ka baxaan oo banneeyaan xafiisyada dawladda awoodoodu ay siin weyday waxaan ku talagalay inaanu halkan aan 200 oo kamid dejino. waxa iyagana aanu haynaa oo iyagana aanu imika haddii Ilaahay ka dhigo aanu raraynaa ilaa 300 oo kale oo iyaga waxaan u dhisaynaa sandaqado ilaa 300 oo qoys oo kale. marka 200 iyo 300 marka la isku daro waxay noqonaysaa 500 oo reer. 500 oo reer inaanu ka rarno goobaha ay degan yihiin si ay mashquulka ay xafiisyadu inta badan yihiin siiba xerada gaaska 220 qoys baa degan oo aad danyar oo buulal ku jiro aan awoodi kareenin inay meel kale qabtaan. annaguna aanu ka xishoonay haddii aan dawladdiinahay annagaan meel u diyaarin inaan rarno oo dabadda u qunaan ku xishoon. sida awgeed ayaa waxaan la kaashan labada hay-adood la yiraahdo NRC iyo UN Habitat inay naga caawiyaan xagga dhismaha. annaguna haddii aan dawladdii hoose nahay aanu keenno dhulka laga dhisayo guryaha laga dhisayo. mudane madaxweyne 200 guri iyo halkii iskuulka laga dhisayay halkii laga dhisayay MCH-ka laga dhisayay halkii masaajidka laga dhisayay halkii laga dhisayay meeshii carruurtu ku ciyaar lahayd waa saldhigga halkii laga dhisayay waa dunida intaa laga imkaartan ilaa inanka hermeesh joogo ilaa dhirta waa 250 baloodh wey. mudane madaxweyne waxaan rajaynaynaa oo aan doonaa in maanta halkan naloo dhagax dhigo. binadu waxay bilaabmaysaa haddii Ilaahay ka dhigo sidaan heshiiskan u kala saxanay wasaaradda dibadejinta iyo hay'adda UN Habitat bishan 12 bay bilaabmaysaa waxaana socon doontaa haddii Ilaahay ka dhigo muddo 4 bilood. 200 guri iyo agabkooda adeegoodaas
afartaa bilood bay soconayeen mudane madaxweyne waxaan rajaynaynaa inaan markaa maanta aad dhagaxa noo dhigto waxaan ku soo wareejinayaa warasaabka degmada gobolka mudane madaxweyne sidii dardaarankaagu ahaa eed shaqada noo faraysay eed nagu faraysay inaannu ilaalino danyarta iyo bulshada danta yarba in meella la dejiyo lana nidaamiyo hay-adaha dawladda taadii annagoo ka duulaynaa waxaannu runtii ammaaniya mahadba u soo jeedinayaa konsolka dawladda hoose guud ahaantoodaba qaybtooda fulinta hadday tahay maayarka iyo maayar ku-xigeenkii xogayahaba oo runtii nagula dhiiraday inaynala banneeyaan dhulkii dawladda eeriyadii shacabka maalinba inaannu ka qaadnana waxaa noo qorshaysan inaannu dhammaan hantidii dawladda gacanta sidii wareegtadaada ku soo baxday mudane madaxweyne aanu gacanta dawladda ku soo celinno waxaan halkan mar labaad uga faa'iidaysanayaa mudane madaxweynena wasaarad kastaaba meesheedii waannu u bannaynaynaa annagoo dawladdii gobolka ah inay wasaarad kastaana meesheedii u soo diyaargarowdo siday u dhisan lahayd mudane madaxweyne dhulka waxaa iibisay dawladda hoose ee magaalada burco cabirka intaa laga yeedaa iibisay qaar kaleoo jiingadaana way noogu daba jiraan waxaanu maanta halkan u taagannahay inaad noo dhagax dhigto 250 guri bismillaahi raxmaani raxiim aad iyo aad baan idinku hambalyaynayaa dawladda hoose haddaad tihiin iyo gobolkaba hawsha qaadaha le aad qabanaysaan waa initiative ama hal abuur aad u wanaagsan wax tari doona insha allahu tacaala aan rajaynayo inuu u faadeeyo ummadda iyo bulshada guryaha le aad u samaynaysaan mashruucan ilaahay ku guuleeyay aad iyo aad baa umahadsantiin madaxweynaha somalilan mudane axmed maxamed maxamuud silaanyo waxa uu kala gooshay xaafadaha kala duwan ee ku yaala magaalada burco halkaasuu si weyn ay ugu soo dhaweynayeen guud ahaanba dadka ku dhaqan magaalada burco kuwaasoo luxayay calanka jamhuuriyadda somalilan caleemo qoyan iyo madaxweynaha somalilan waxa uu dhagax dhigay wadda 1 kilomitir ah oo ka mid a wadooyinka dhex mara magaalada burco بسم الله الرحمن الرحيم مدن مدحويني halkan waxaan rajaynaa inaad noo dhagax dhigto dugsi sare oo xaafadan ay u baahan tahay xaafadan October waa xaafad aad iyo aad balaaran marka dugsigana waa dugsi dhexe oo hore isaga loo dhisay halkan imika waxaanu ka dhisaynaa hadii Ilaahay ka dhigo dugsi sare dugsiga sare waxa naga caawisay hay'adda Care la yiraahdo
dhulkana dawlad hoose ahaan anaga bixinay sida awgeed iyo waxaan doonaynaa inaad noo dhagax dhigto mudane madaxweyne. bismillaahir rahmaanir rahiim. madaxweyne dugsigani waa dugsi secondary aan ugu talagalay wasaaradda waxbarashada dhisaysa hay'adaha waan u qaybinaa mid walba intay wax ka dhisaysa iyagu ma bixiyaan lacagta waxa weeye lacag ay dawladda Soomaaliland leedahay wasaaradda waxbarashadu leedahay waxaan ugu talagalay dugsi sare markii hore dhul maanaan haysan laakiinse imika kan markaanu dhagax dhigno waxa laga yaabaa meesha xiridhiigta laga rarayo oo u dhow dhowr xaafadood ay ka iman karaan way arrinta halkan ugu ku fogtay horeba way ugu fogeyd inaan insha Allah u bedeli doono oo isla garanay maayarka oo isla garanay wasaaradda waxbarashada laakiinse imika halkan inuu dhagax dhigaynaa laakiinse ugu dambeynta iskuulka secondary wuxuu ka dhismayaa xiridhiigta halka laga rarayo. bismillaahir rahmaanir rahiim waxa la tahay inaan ilaahdo farxad way beentay inaan dhagax dhigo iskuulkan laga faa'iideysan doono ummadda bulshada faa'iido u yeelan doona insha Allah iyo xaafadatan marka insha Allah waxaan rajaynayaa in noqdo kii lagu guuleystay dalkeena dadka waanfaca. madaxweynaha Soomaaliland iyo waftiga uu hogaaminayo isagoo ku guda jira sodaalkiisaasi shaqo waxa uu sidoo kale kormeer ku tagay kaawaan cusub oo laga hirgelinayo magaalada Burco kaasoo loogu talagalay in lagu qalo xoolaha. madaxweynaha Soomaaliland waxa uu warbixin ka siiyay barasaabka gobolka Togdheer iyo waliba maayirka magaalada Burco. mudane madaxweynaha waxa weji waa kaawaankii qallinka ee cusbaa mashaariicda gobolka hirgashay waa mashruuca ugu ballaaran waa mashruuca waa kaawaankii xoolaha lagu qalayay lacag dhan $1,700,000 ayaa ku baxay bisha 27keeda waa la furayaa waxa lagu qali karaa xoolaha ugu badan waana mashruuca ugu qaalisan ee gobolada Soomaaliland kaawaanadooda qallinka waa kii ugu modelka u dambeeyay wuxuu leeyahay halka mudane madaxweyne waxa lagu sameeyaa uuskii xoolaha oo tamar dib looga dhalanayo bilaacadaadu waaweyn oo ku dhacaya dibadna hadhow tamar loo bedelayo waa mashruuca ugu ballaaran kormeerkan ugu soo sameystay iyo eegidan ugu soo sameysayna waan kaaga mahad celinaynaa ceel biyoodo gaarna uu leeyahay gaar isaga aad baad u mahadsantahay mudane madaxweyne aad iyo aad kormeerkaaga noo soo dhaweynaa wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waftiga uu hogaamin waxay u kicitimeen dhinaca jaamacadda magaalada Burco. madaxweynaha Soomaaliland waxa ku soo dhaweeyay maamulka sare ee jaamacadda iyo waliba ardayda wax ka barata jaamacaddaasi. intaasi kadib waxa uu saxay buugga loogu talagalay inay saxaan madaxda kala duwan ee jaamacaddaasi soo booqata. maanta masuud baanu nahay mar haddaanu madaxweynihii uu noo yimid oo official buuggii noo saxeexay 3 sannadood iyo 2 bilood iyo ayaamaanu jirnay marka haddii aan anigu xisbiga ahaa yani mustariix baan ahay mabsuud baan ahay waa sidaa gudoomiyaha gobolka oo barasaabka wadooyinkiiyo jaamacadda labadaba wuu gudi
وميديسنكي iyo veterinary waa dhaqaatiirtii xoolaha iyo kuwii dadka ya wala kale akhyaarta hawada nagala xidhiidha intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkaasi aanu ku eeganay barnaamijyada taxanaha ah ee aanu idinka diyaarinayno sodaalka madaxweynaha ee gobolada bari waa dhinaca sawirqaadista cabdilaahi cali suudi habeynta iyo iskuduureedka barnaamijkan maxamed caqli hadi maasim axmed cawaale iyo axmed saki daahir xasan oo dhammaantiimeedu ku dhaafaya barnaamijkan dhigiisa intaynu mar kale ku kulmi doono nabadgelyo.